السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. libaaxu waa boqorka kaynta sida caanka noqotay. Inkastoo xayawaankani uusanba ku noolayn kaymaha ee uu ku nool yahay dhulka daaqsinka ah. Waa bahal aad u shida badan aadna looga cabsado. Wuxuu arkana kolka uu gaajaysan yahay ee adag tahay inuu dhaafo. Waa bahal marka uu ka soo horbaxo ee uu kugu soo wajahan yahay cabsi rabbaani ah ay ku qaadanayso. libaaxa ayaa koox u nool una ugaarsada bisadaha waaweyn. libaaxa kaliya baa sidaas sameeya taasoo u sahashay inay ugaarsadaan duurjoogta waaweyn sida geriga oo kale. Saynisyahanada ayaa waxay kaloo sheegeen in libaaxu bisadaha kale ka maskax badan yahay. Iyaga oo tijaabo sameeyay sanduuq hilib ku dhex jiro oo aan furmayn ilaa xarig la jiido ayaa waxaa la soo hordhigay xayawaano fara badan. libaaxa ayaa waqti yar ay ku qaadatay inuu fahmo sida loo furo boxkaas, halka shabeelka iyo haramcadka ay furi waayeen ama waqti dheer ay ku qaadatay. Markaan u soo gudubno ninkan maanta ka hadlayno waa nin u babacdhigay sidii uu la saaxiibi lahaa libaaxyada. Ninkan ayaa waxaa la dhahaa Kevin Richardson, waa nin South Afrikaanka cad ah oo ku nool waddankaas. Ninkan ayaa dhalinyaranimadiisii waxa uu ka soo shaqeeyay meel lagu xanaaneeyo libaaxyada, isagoo caanaha siin jiray goorta ay dhashay yihiin oo masaasada carruurtu ay caanaha ku cabaan oo kale ku siin jiray. Ninkan ayaa waxa uu la seexan jiray, cunno siin jiray, la ciyaari jiray libaaxyadaas ilaa ay ka weynaanayeen. Isagoo marka ay dhashaan ilaa ay ka weynaadaan sidaas ula dhaqmi jiray, taasoo keentay in libaaxyadaasi marka ay weynaadaan aysan waxba yeelin amaba aysan cunin, maadaama uu yahay ninkani ciddii soo xanaaneynaysay libaaxyadaas ilaa markii ay dhasheen. Mar la weydiiyey haddii ay jirto mar uu sigtay intuu la dhaqmeeyay xayawaankan khatarta ah, ayaa waxa uu sheegay inuu mar walba digtoon yahay, laakiin aysan wax dhibaato ah marna soo gaarin ciddii xagtay mooyaane. libaaxyadan ayaa waxay ninkan ula dhaqmaan sidii inuu qoyska ka tirsan yahay, iyagoo markay arkaanba soo dhaweeya. Laakiin taas macnaheedu maaha in libaaxyadan ay dadka kale badbaadiyaan. 27 Febraayo ee sanadkan aman ku jirno ee 2018, libaax ka mid ah libaaxyadiisii ayaa waxa uu dilay gabar soo booqatay meeshaas, kadib markii ay gabadhaasi meel cidla ah ay la kulantay libaaxaas. Ninkan ayaa waxa kaloo uu xanaaneeyaa xayawaano kale sida dhurwaaga iyo haramcadka, isagoo dokumentariyo shaashadaha caalamka laga soo sii daayay ka sameeyay arrintan. Intaas ayay ku egtahay warbixinteennii maanta. Intii aan mar dambe kulmayno, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.